axmed naasir waad saad u sheegtay dadku laba su-aalood bay isweydiiyaan waa qofku miyuu isdhiibay waa su-aasha hore miyuu soo noqonayaa su-aasha labaad muxuu isku dhiibi waayna waa su-aasha ku xigta muxuu ka soo doonaya waddankii usoo noqonayaana qofku odhanaya markaan waxaan qabaa maxamed ahaan horta ma jecli inaan isdhiibo oo waddankan dego oo aan ku noolaado oo bay'ad ahaan iyo deegaan ahaan ma jecli inaan ku noolaado qurbaan ku noolaado ma jecli waayo waanan la qabsan xaafadii shaqadii waalidkii ehelkii eedaankii masaajidkii sadaqadii jacaylkii dadka xidhiirintii yani wax badan oo aan isleeyahay noloshaaday saxaysaa iyo aakhiradaadii u dhaweynaysaa ayaan isleeyahay waad waaye oo markaa dadka halkan jooga warkan qabaa waa kaa sidaasaa marka leeyahay waxaa laga yaabaa dadka halkan jooga inay nolosha la qabsadeen in muddo soo galeen oo adigoo kale aad 20 sano ama 15 sano ama in ka badan oo kale aad joogtay marka aad noloshii fahantay adigoo aniga iga yahay laakiin maanta adigoo qof weyna oo xaas leh oo carruur leh waxaa laga yaabaa noloshii igu adkaato ay hadhow ka go'naato noloshayda intaa marka qofkii la qabsaday fursadda iga hor helay waana nu haneeyan hambalaya idhaa sida adigii dhalinyarada kale waa joogta idda xidhiidhkana leh oo adigoo halka jooga oo adiga waddankii ka shaqeeya ee warbaahinta waddankii ka shaqeeya ee dadkii ku xidhan ee kala garanaya ee xiisaynaya dadkii waa noqon karaa saasoo kale laakiin waqti bay u baxantay laakiin way u adkaato niidi way u adkaato lama qabsan karayo marka waa inaan noqdo ayaan danaynayaa insha allah ilaahay idamkii saasaan xiisaynayaan jeclaysanaya talabaad waddanka waxaan yidhi waxbarasho jaamacad baa keentay Canadian Mennonite University jaamacad leedaha oo gobolka Minnesota ku taalla Winnipeg jaamacaddaas aan u imid jaamacaddii waan dhammaystay waxaan baranayay peace building and trauma resilience baan baranayay way ii dhammaatay haddana waxaan qaatay course labaad oo ah trauma peace building crisiska ku imaada ayaan qaatay intaan joogay baan qaatay muddo bilaan jooga marka course-ka kooban buu ahaa laakiin markaa kaa peace buildingka iyo trauma resilience-ka ayaa waxaan doonaya inaan qaato insha allah qaybtiisii labaad iyo inaan kordhiyo luuqadahayda mar halka markaa muddada iga dhimanay joogayo 2 bilood ilaa 3 bilood muddo ku siman aan halka markaa ka dhigto iskuullada luuqadaha iyo iskuullada certificate courseska halka loo keenay marka intaan bal ku soo geeyay insha allah laakiin waxbarasho ma yimid waxbarasho insha allah markaa ii dhamaatana inaan noqdo aan sameyn nidaam khaldan aan marin baan ayaan xiiseynaya laakiin Ilaahay wuxuu qoro isaga dii casiisay waa meesheedu weeyaan insha allah waxaad tahay suxufi yaqaano oo suxufigana waa inuu wacwal la socdo wacyigiisa kulliba dad badan baa isweydiinaya waayo manaasib sabab weydiin waayey oo dalka xaaladda imika waa ka soo maqan oo dalkii inoo ka waran adiga ugu dambeeyay dalkii marka la eego Somaliland gudaheegii marka la eego walays iyo wanaag labaduba way ka jiraan dadkiina way dadaalayaan dalkiina wuu dadaalayaa laakiin waxaad moodaa rajadii wanaagsanayd ee dadka Somaliland ay xiisaynayeen ee jeclaysanayeen ay Somalilandnimada iyo dalahaanta u hayeen inay hoos u dhacayso sababaha kalifayna waa wax cadoodee la wada garanayo oo xaqaa'iqa cadceedda saxaabada laguma qarin karo waxyaabaha kalifaa waa la dareemi karaya doorashaa dhacday sidee doonto doorashadaas ha u dhacdo waa la kala badiyey waa la kala guulaysan karaa laakiin culays iyo furnaan iyo qabaa'il iyo mushaakilaad baa ka yimid sidii loo baahnaana looma xallin hadalka marka sidiisa loogu tago maaha inuu qofku laabta ku qarin laakiin sidii loo baahnaana looma xallin dariiqii loo baahnaana looma marin dadka reer Somalilandna taasii tabayaan way xiisaynayaan inay dad isku mid ah oo isjecel oo aan kala tegin inay noqdaan laakiin dariiqeedii ay ku noqon lahaayeen cidda midida daabkeeda hayse ku xidhantay dee inay dadka halkaa gaarsiiso marka xukuumaddii la doortay baa waajibaadka leh dee taas waa taas laakiin dadku wanaagsanaa roob baa ka daay abaar may jirin
dadku barwaaqay ku jireen alxamdulillahi rabbil caalamiin dee dadku noloshoodii iyo mustaqbalkoodii way dhiseen way la daalaadhacayeen intii duruuftu ku jirta laakiin dad niyad wanaagsan oo ilaahooda aaminsan oo arsaaqdooda aaminsan oo dadkooda jecel oo dalkooda jecel bay yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan nidaamkii loo maamulayay iyo nidaamkii waddanka lagu hagayay in dee lala tacaalo kor loogu qaado oo la dhiso oo niyaddoodiina la dhiso horumarna loo sameeyo dee wax ay kaga mashquulaan waxay maanta ku mashquulsan yihiin ah kelmadda meel laga yidhaahdo inay dadka wada eegaan oo dhinac u wada jeestaan dee dadkii ka mashquulin lahaa ee hoggaankii waddanka hayay dee ayay u baahan tahay inay siyaasad dadka u keenaan oy qorshe mustaqbal u sameeyaan oo fog oo dadka laga jiheeyo waxa kooban ee lagu mashquulayo haddii maanta dameer la qalay somaliland dameerkii wada qashay maxaa u keenaya dee wax weyn waa in dadkii la jiheeyo jihayntii waa inay markaa ka timaado dowladdana waxa laga doonaya dadka jihayso dadka ilaaliso dadka niyaddooda dhisto oo qabaayilka dadka lagu koriyo oo shuruucda la ixtiraamo la dhiso oo dadku wixii ay wada lahaayeen dee loo wada ilaaliyo u baahan yihiin anu saasaan qabaa aasiisxufiyahan waasan wax u arkaya dee aniga ay la tahay way noqon kartaa inay wax u jiraan sidaa waana noqon kartaa inaan waxba u jirin laakiin anugu waa sidan dee u dareemaya inay wax u jiraan maxamed ahaan shakhsiyaddayda markaan eego xaqaa'iqa dee anugu aan sameeyay sidaasa adiga xaqaa'iqaaga ah marka hadalka xaggayga u dhigo waa sidaas xaqaa'iqaaga baan sameeyay marka dalka in la ilaaliyo u baahan yahay furfurnaantana laga saaro hoggaankuna dee ku dadaalo mustaqbal in dadka loo dhiso mashaariicdii horumarineed waddankana iyo qorshahay dowladdu dee la timid inay waddanka ku hoggaamiso 5 sanana iyadaa laga rabaa inay fuliso wixii ay buugga ku qoratay waxay dadka codka ka heshay iyo wixii ay dadka maaragtay ay wax kaga doontay iyadaa laga doonay inay tiraa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 baan fulinay laakiin iyadoo isku sacabatantay iyadoo isqanciso dadkiina ay tamaan inaanay waxba socon ma hadda oo iyadoo israali geliso laakiin ay dadkii dee doortay iyo ummaddii dee ay raali gelisay mas-uuliyaddeeda iyo dad hawsheeda qabato marka anu waxaan qabaa dee wixii fikirkayga ee gaarkiina waa taa dalkiina wanaagsanaa dee dalkiina in la wado dadkuna aanay niyad jabin ayaa muhiima doorashooyinka iyo dee waxyaabahan lagu murasan yahayna dee dadka cid baa dee taliso une dee waa 3 meeloode 3 xisbi iyo xukuumadduna xisbi unbay ku jirtaa dee dadka si fiican loogu taliyo jiid waa gacmadaadisay cid buu go-aan ka go-ayo ciddii ka go-da ama tanaasulkeeda la timaado dee ama badheedheeda la timaado weeyaan 3 xisbaa dalka u taliya dadkeeda ku mashquulin 15 sannadood dad baa sugayay xilkaa oo 5 sano markay dhammaadaan baa inay intaasoo dhalinyari gasho 82 kale inay galaan baa 15 sano dee waa dhaliil u taalla dadka hoggaanka haya inay doorasho qabataan looga baahan yahay haddii xisbiyadu isku haystaanna dee xisbiyada mar walba dowlad baa jirta ama xukuumad baa jirta oo go'aamadeeda iyo tanaasulkeeda iyo mas-uuliyaddeeda lede markayna xukuumaddu soo dhaweyso dadkii ay wax u qabataan muhiimadde oo dadkii doorasho u qabato deegaankii baa wada dhaafay dadkii baa ka cabanaya shaqooyinkii baa soodi loogu qabanaya duruufta ka jirta waddankii waad ogtay hargeyso celiidhigii waddooyinkii uskagii wax badan baa jira waxa la qabto laakiin sidii loo baahnaa iyo fursaddii la haystay lama wada gaarsiin halkii fursadda lagu haystay waad arkaysaa dee golaha deegaanka hargeysaba waxweeyaan waxbaa la qabtay wixii la qabtay laakiin maaha waxba kamaaha waxay dadku filayaan iyo waxa la doonaya in la gaarsiiyey iyo wax ka weyn baa laga rabaa waana dhalinyartuna waxay xoog bay leeyihin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 40 baa loogu dhiibay risaalada marka 40 iyo ka yar ay ahaayeen iyo imika yihiin shaqo badan baa laga rabay marka isugu jira dad badan isugu jira laakiin waxa weeyaan dee haddana dadka mustaqbal kale ee Somaliland ee dhalinyarada ah ee la jeclada laba badan ee wax dhigtay ee doonay waddanka inay hoggaamiyaan marka inay meesha ka sifoobaan dadkan ilaa 60 meesha soo taagnaa waa dadku waxay xaq u leeyihiin reer Somaliland waxay xaq u leeyihiin oo dhalinyarada mustaqbalka ay soo gasho oo qurbaha ka timaadaan oo hoggaamisan dalkii oo dhalinyaradii wax ku baratay ee hoggaankii qabato oo shaqadii hesho oo siyaasad cusub iyo tijaar cusub oo casri ah iyo la jaanqaadaan laakiin uu taagnaa oo noqdo 80 jir iyo 70 jir iyo 60 jir baa la dhageysanayaa inankii mustaqbalka lahaa ee waddankana dee lama dhageysanayo waana weli inan yar ee adduunyada kama shaqaysa inanka yar waddanka haysta 40 jir weeyaan waad ogtay inay yaro dhalinyaro weeyaan prime ministerka Trudeau waxa weeyaan
waxaad wax kale ka eegi Somaliland markii ku leeday Soomaaliya ay mar walba ka cabanayso dawa ceebda cabashada dama cawdade gudaheegii baan cabanay Soomaaliya gudaheeg maalin walba ay siista wada aragtay galmudug maxay Puntland Jubaland lacag baa laga gooyaa ciidan baa laga qabsadaa shaqa la isku diidaa doorasho la isku khasbaa xildhibaana wax walba waa taa ilaa imka buu ka taagan yahay haddana madaxweyne cabanayo mar walba le Puntland baa laga xiray waxa ma jiro Jubaland baa waxa laga ma jiro galmudug baa waxa ma jiro Jubaland koonfur galbeed ma jiro de marka maxaa Somaliland kalibee inay cabato waxaan iyaga baa isku sameeyay oo kala cabanay siyaasadda waa diblomaasiyadda baan aad baad ma santahay waqtiga qaaliga aad siisay aad waa santahay aad waa okay thank you very much